hadday shaqayn waayeen xeerashii iyo qodobadii iyo wixii lagu heshiiyey maanta wixii ka dambeeya beel waxay ugu dawladaysaa waa khalad annaguna waxaan qaadanaynaa mowqifka uu nagu horkacay Professor Axmed Ismaaciil Samatar waxaan leeyahay dhammaan dhalinyarada Gadabuursi ee degan gobolada Gadabuursi meel kasta oo jegaba ha u dhegan nuglaadeen hadalka Professor-keena Professor Axmed Ismaaciil Samatar iyo ururka uu hogaamiyay iyo dhammaan go'aamada masiiriga ee ka soo bixi doona ururkiisa iyo haldoorka bulshadeena Gadabuursi meel kasta oo jooga ninka wasiirka kula jooga haddaad hadalkiisa dhegaysatid salaama cali hore ku tusaale qaado shalay waad dhegaysanaysid dadweynahana waad iska dhigatay annagoo ah dhalinyarada gobolada galbeedka Somaliland awdal salal iyo degmada Gabiley waxaan maanta u taaganahay halkan ka dhalinyar ahaan inaan taageerno bayaankii iyo baaqi ka soo baxay Professor Axmed Ismaaciil Samatar iyo urur siyaasadeedka Hilaac haddaan nahay dhalinyarada Somaliland gaar ahaan gobolada galbeedka ee awdal iyo salal iyo degmada Gabiley waxaan isu barbar istaagaynaa si miisaaniya mugle Professor Axmed Ismaaciil Samatar oo aan leenahay waad nagu matashaa hadalka aad tidhi iyo mowqifka aad ka istaagtay Somaliland iyo qaabka aad u hadashayba waxaan leenahay Professor aad baan kuu sugaynaa waanu soo dhaweynaynaa talada aad nagu soo celin doontana sideeda ayaan uga hawlgali doonaa insha Allah barbarkaagana waanu taaganahay qodobka labaad ee ka hadlaya Somaliland waxay ku heshiisay dastuur waxaan lahayd xeerar iyo qawaaniin u taagan dastuurkii haddii laga beeray oo dhan looga istaagay oo beela la istaagay oo dadka ay beela noqdeen annaguna waxaanu nahay beel ka mida beelaha Somaliland oo waliba degan galbeedka Somaliland annaguna waanu isku tashan doonaa mowqifkayga iyo go'aankayga waanu cadeyn doonaa qodobka u dambeeya ee saddexaad waxa muujisiya la yaaba maxaan ku leeyahay saarkii uu madaxweynuhu fahmi la'aa sababtu uga fahmay odayaal ka timid bari ay u fahansiiyeen ay ugu qanciyeen ee looga noqday wixii commissionka baarlamaanka ee meel walba la mariyay ee xitaa ay ku soo saareen madaxweynuhu digreeto hadday shaqayn waayeen xeerashii iyo qodobadii iyo wixii lagu heshiiyey maanta wixii ka dambeeya beel waxay ugu dawladaysaa waa khalad annagoo gobolka Salel iyo Awdal iyo Gabiley degan waxaan halkan aad iyo aad uga taageeraynaa Professor Axmed Ismaaciil Samatar iyo go'aankiisii uu ka qaatay nidaamka doorashooyinka Somaliland waxaan aad iyo aad u taageersanahay go'aankii raganimada lahaa oo qaatay taas ayaan garabkiisa ku taaganahay haddii aan nahay aqoonyahanka iyo dhalinyaradii beelweynta Gadabuursi ee degan gobolada galbeedka ee Somaliland waxaan aad iyo aad u cambaaraynaynaa kulley Somaliland waxay ku heshiisay nidaam iyo sharci iyo xeerar bay lahayd iyo qawaamiin waxaanu ogsoonahay oo dhalinyarta Gadabuursi meel kasta ay joogtana ay og tahay in nidaamkii sharciyan ee lagu heshiiyey 32 sanadood ay Somaliland jirto daawanaynay ishana kala soconay rajada aan ka sugaynay ay ku dambaysay in halkii 1991 oo ay odayo dhaqani talinayeen inay maanta taagan tahay odayo dhaqana taladii lagu wareejiyay waxa laga guuray golayaashii sharciga sida golihii baarlamaanka golihii guurtida iyo golihii wakiilada taas ay ku matelayeen matalaad ku lahaayeen gobolada kala duwan laakiin qolada xeerka loo dhiibay ee salaadiinta dhaqanka ee gaar ahaan beesha habar jeclo taladeeda waa la qaatayna la leeyahay ma aha toon noo cuntanta aba noo go'aamisa sababtoo ah beel uma dawladayso annagaba way jiraan beelo kamida oo oran karno beesha reer hebel ayaa go'aan noo soo saar waan samayn karnaa taas kadaalikeed waxaan xeerinaynay oo nidaamkii aynu dhiganay 1991 kaas oo xeerinaynay muddo 32 sanadood taas kadaalikeed maanta waxaan aad iyo aad u soo dhaweynaynaa aad iyo aadna u taageersanahay Professor Axmed Ismaaciil Samatar iyo go'aanka uu ka qaatay ee geesinimada leh ee uu ka qaatay nidaamkii doorashooyinka taas oo nidaam doorasho ay saara ay keeneen taas oo hal beeli keentay may keenay Somaliland oo dhan kuma heshiin annagu waxaanu diyaar u nahay in doorashadii madaxtooyada ay galaan ururada Somaliland haddii ay dhici weydo taas beel u dawladeyn mayso beel waliba gaarkeyga ay u tashan doontaa haddii Ilaahay idmo waxaan leeyahay dhammaan dhalinyarada Gadabuursi ee degan gobolada Gadabuursi meel kasta oo jegaba ha u dhegan nuglaadeen hadalka Professor-keena Professor Axmed Ismaaciil Samatar iyo ururka uu hogaamiyay iyo dhammaan go'aamada masiiriga ee ka soo bixi doona ururkiisa iyo haldoorka bulshadeena Gadabuursi meel kasta oo joogaba waxaan aad iyo aad uga xumahay waxaan arkayay maalmahan niman siyaasiyiin sheeganaya oo ka tirsan beesha dhexe kuwaas oo Axmed Ismaaciil Samatar TV-ga u soo fadhiyay oo lahaa muddo
28 sanadooda ayaa waxaad rogaad ku hayd Somaliland taas micnaheedu waxay nooga mid tahay ree awdal waxay rogaad ku yihiin oo dhib ku yihiin oo dulsaar ku yihiin Somaliland jiritaankeega taas ayay noola mid tahay sababtoo ah waayo hadal la'aan qaban baa jira sababtoo ah maadaama waxaan nahay dad ka mid ah dadka degan gobolada Somaliland goboladooda galbeedka gaar ahaan gobolada ugu ballaaran waxaan nahay bulsho la curyaamiyey dhammaan ilaheegii dhaqaale markii annagoo og institutionka Somaliland ka jira inuu saddex yahay saddex ayaa maxkamadda golaha baarlamaanka iyo golaha guurtida iyo maxkamadda taasi oo go'aamaday soo saari jireen uu madaxweynuhu laalay laakiin waxa nasiib daraa inuu dhageysto maanta afar yar oo reer oo beela oo u yimid oo yiri madaxweyne saayeel madaxweyne waxaan kaaga diganaa gobolkan waad ogtahay xaaladdu ku sugnaa in badanna waad ogtahay marka waxaan kaaga diganaa haddaan nahay dhalinyaradii gobolka awdal gabiley boorame iyo saylac waxaan ku leenahay hadalka professorku uu ku leeyahay ayaan anaguna taabacsannahay haddaan dhalinyarintiisii nahay haddaan dadkiisii nahay haddaan tolkii nahay haddaan girabuusoo dhan nahay waxaan kaaga diganaa war ka joog baan ku leenahay arrinkaasi siduu professorku yeelku yeel siduu xisbiga hore uga mid ahaa ururada soo horeynayeen haddaad qaban weydo waxaanu ku leenahay madaxweyne arrinkaasi ka joog dawladdan la hadlaya dawladda waxaan leeyahay ninka wasiirka kula jooga haddaad hadalkiisa dhegaysatid Saleebaan Cali Koore ku tusaale qaado shalay waad dhegaysanaysid dadweynahana waad iska dhigatay maanta halkay ku dambaysay Saleebaan bay tiisi socotay mise tii dadweynaha noqotay halkanna birtooda waad ku daali doontaa intaad haddii sii geeya maxay kale u yeedha maxay nagu wada hadashiyaad lalahay bilaameyna kula fududay inaad maanta wax yar eegto madaxweyne taasaan ku leeyahay dadweynahana waxaan leeyahay waa meel walba bay joogaan dadku ma wada bisla weliba inta qaybin baa yaa badnaan karta waxaa laga yaabaa maanta markayna hadallo qolo inaga mid ah inaga daba hadli doonto haddaynu idhaahno hebel baa hadlay oo ciddaas inaga da maaha wax suuragala laabtaa laga dhaqaaqaa inta kalena iyadaa iska iman qolada dawladda nagaga jirta wasiiradana waxaan leeyahay maalinta lagu soo celiyo intaad danaha iyo mucaaridnimada dareemi lahayd maanta dareen oo taariikhdaa lagugu qoro gobolkan awdal wax taariikh isagoo xil haya uga tagay danaha gobolka Samarool hal nin baa jira Axmed Maxamuud Sidcila loola jiro BBC-da wareysatay galabtii markay wareysatay danihii gobolka awdal buu ka hadlay habeenkii la uscasilay ninkii doolayaa buu dhageysan karaa kuwa la dhameeyay waxaan ku dari lahaa in yar uma ku dari lahaa oo ah in maanta ay ku soo hagaagtay maalinkii ay bulshada gobolka awdal u baahnayd in uu professorku hogaamiyo maalin ay dhammaantood wara baraarugsan yihiin bulshaduna isku duuban tahay waxaan ku leeyahay professor kaalay gobolka waxaad nagu taliso ayaanu anaguna kugu raacsanahay haddii ay beesha dhexe iyagu isku arkeen inay leeyihiin mowqifkii Somaliland aynu wada dhisanay inay kaligood leeyihiin waan iniga maarmi karnaa oo niidayn karnaa haddiise Somaliland la wada leeyahay aad doonaysaan waa in systemkii iyo dawladnimadii iyo cadaaladii aynu helo waayo dastuur baa dalka ka jira laakiin dastuurkii waad ka baydheen beel qura ayaa aanay soo saartay go'aan waliba kamida jufooyinka ugu hooseeya Soomaaliland haddaad u aragtaan inaan beelbeelihiina ka mid nahay ma nihin laakiin waxaan nahay bulsho ballaaran oo degta gobolka awdal salal iyo degmada gabiley gudoomiye professor haddaanu nahay anagu dhalinyaradii gobolka awdal waxaanu kugu taageersanahay go'aan walba oo aad qaadato waxaana diyaar u nahay go'aanka ururkaagu qaatay ma yeelayno in Somalilandtii la wada lahaa ee la wada dhistay 1990 in waxa weeye in dastuurkii iyo xeerarkii dalka inta laga guuro waxa weeye la yiraahdo waxa la idinku dhaqayaa go'aan ay guddi habar jecel la yiraahdo ay soo saartay waxaasi wax ma ahan qabta haddaanu nahay dhalinyaradii raa awdalna waanu taageersanahay go'aanka uu qaatay gudoomiyaha urur siyaasadeedka Hilaac Professor Axmed Ismaaciil Sabata